laga qabo inuu ku fataho wabiga shabeele qaar ka mid ah deegaanada Hirshabeelle qodobkaasi waxa uu hayay Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim jamuuni dadka ku nool xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar ayaa cabsida ugu badan ka muujinaya in uu ku fataho wabiga shabeelle inkastoo si guud cabsida laga qabo fatahada uu sameeyo wabiga shabeelle ay ka jirto guud ahaan deegaanada Hirshabeelle intooda uu wabiga maro saacadihii u dambeeyay Jowhar iyo magaalooyinka kale ee uu wabiga maro waxa ka da'ayay roobka guga waxayna dadku bilaabeen in ay jawaano carro lagu shubay gidaar uga dhigaan biyaha wabiga si fatahada ay uga baaqsadaan mas'uuliyiin uu ka mid yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Daqare ayaa ka qayb galay dadaalka ay dadka deegaanka uga gaashamanayaan fatahada wabiga ee baqdinta laga qabo maadaama uu curtay roobabkii guga Maxamed Bashiir Daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in loo baahan yahay in la qaado tallaabo degdeg ah si looga badbaado khatarta ka dhalan karta haddii uu fatahad sameeyo wabiga shabeelle laga soo bilaabo Deefow oo ah gobolka Hiiraan ilaa iyo degmada Balcad oo Shabeellaha dhexe ah waxaa ku dhex jira goobo laga cabsi qabo in uu mararka qaar karkarada ka jabsado wabiga shabeelle waana 59 mayl mana jiraan hay-ado u diyaarsan in ay wax ka qabtaan oo si degdeg ah uga jawaabayo cabsiyada dadka deegaanka ayuu yiri Maxamed Bashiir Daqare wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka maamul goboleedka Hirshabeelle deegaanada Hirshabeelle intooda uu wabiga maro gaar ahaan xarunta gobolka Hiiraan ee magaalada Beledweyne ayaa lagu xasuustaa saameyntii uu ku yeeshay wabiga shabeelle oo si daran uga fatahay deertii aynu soo gudubnay Ibrahim Maxamed Xasan Ibrahim jamuuni Radio Wadani TV